بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر درك سورة لغو مغعابي مكية مكي كسو دكتي وآياتها هذه 3 آيات آيات يالو سد حواي سورة دينو ميشان كجلينو وعلى إلى سورة الكوثر سورة والعصر إيه آيات حق مركاسي الفاظ سورة ذا وهو قابنا ليري لكن معاني ذو آدي أي أتربضن تاي وعاكرو لغو مغعابا سورة النحل نوال لغو مغعابا ومكي وحاقب ابن عباس آقب إمام الكلبي إيه مقاتل إيه جمهور تاقبه ومدننا مركاسي قول الحسن البصري إيه عكرمه إيه مجاهد إيه قتاد لكن سيدا مشهورك سيدا هرواي وعنا أتخينا سوى نزولك وننك اللي يرى عاص ابن وائل وبني سهمي أهي أيها رسول كان الله كل عليه الصلاة والسلام مسجدك أيوه كل مي الباب كي باب بني سهمي لده مركاسي شاكيستين dad oo markii maka la joogay dad salaadiid quraysh nimankii madaxdooda ahayne meesha ayay fadhiyeen markii caas markuu masjidkii toos soo galay ayay waxay ku yiraahdeen man alladhi kunta tatahaddasu ma'ahu yow hay ninka la sheekaysays markaas uu dalika al-abtar u dhahay midkaas abtarka oo dabada go'anaho awlaad iyo midna aan lahayn awlaadiisa dhimatay aan maartay aan la sheekaysay soo nabi xaqiraay وقتكاس النبي عليه الصلاة والسلام وحا الله أوفصدو دنت ويلكيس قاسم هاي أيا النبي عليه إلهي أوفصدي تاسا إلهي سبحانه وتعالى مركز أو كورهما يا رسول كان عليه الصلاة والسلام إلهي تصريع يوصينا يا الله مركز حولاي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنه أعضيناك وحان قصينا سيدك محمد كهو كوثر أيانو قصيني درك كوثر ليرادو أيانو قصيني فصلي دكونا إلهي لربك ربك أدكو وانحر قور عود إلهي حولها مركز الحيضة إن شانئك كنكو عرودي هو إساق أياء الأبتر مدبقو عنه إلهي سبحانه وتعالى رسولك مقامك أقارسي يوح الله أوسيي يوح أيوة أي فيرايان إن إنسان إصلاحين با إلهيك ورحمياه إنا أنه أعضيناك وحانو قصينو لإلهي الكوثر أيانو قصيني معناها waxaa laga wadaa waxaanu ku qadirnay oo ku khaas yeelnay oo ku goynay cilmigeena oo qadiimka oo azaliga waliga leeyada maartay kawsar ayaanu ku siinay al kawsar oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kawsar ayaanu ku siinay kawsar ku marka waa wabi jannada ku yaala waa nabiga xawlkiisa leeyahay oo ummadiisu ay arooreyso ama sa'al kawsar khayr badan ayaanu ku siinay waa lagu fasiraa oo markaas nabinimada iyo quraanka iyo shafaacatul udma iyo waxaan la soo koobi karana ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa uu siiyay inna annagu acdaynaaka waxaanu ku siinay al kawsar khayr fara badan ayaanu ku siinay leeyahay kara wabigaas jannada ku yaalna waa lagu fasiraa oo xawlka nabiga alayhi salatu wasalaam ummadiisa ay arooreyso waxaana adkaynaya nabiga waxa uu dhahay alayhi salatu wasalaam al kawsaru nahrun fil jannati كوثر كو حوي وبي جنده كو يالا حافتاه من الذهب او وحوي هريرهيسو ذهب ويه ومجراه على الدر والياقوت ماشى او مرهينه لول iyo jawhar ayaa markaas oo maraya turbatu adyabo min almisk aradiisu miskay ka araf badan tahay wama ahla min al'asli bihiisuna malabkay kama yihiin wa abyadu min asalj aanahna waa ka cadihiin sidaas ayaa markaas adkaynaysa oo حولك النبي عليه الصلاة والسلام مديسو يروريسو marka hadda kawsarkan waxa ku soo arooray aqwal fara badan oo tafaasiirta gaaray markaas 16 qowl gaaray taas ku soo aroortay hadii la yiraahdo khayr badan waxa weeye Anas ibn Malik ayaa waxa uu dhahay بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا إخفاء نبي واحد ديري كبعد هذا مدحيسو oo kor yeelay asagoo dhoosha ka qoslay maxaan aanu marka maxaa ka qosay rasuulka ilaahay marka soo dhaadata waxa la soo dejiyay suurad markaas uu akhriyay bismillaahir rahmaanir rahiim inna a'daynaaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwal abtar markaas uu dhaw waxa uu dhahay kawthar kama taqaanin ilaahay rasuulkiisa ogaan dhahnaa markaas uu dhaw wabi ilaahay iyabo hay rabbigaygu oo markaas waxa waaye khayr fara badan oo ku sugan yahay وانا حولك مركاسي ومديدو maalinta qiyaamay arooreyso marka hadda ahadiista faraha badneedo ku soo aroortay xawlka nabiga kaleey salaatu wasalaam oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamay umadeyda ayaa arooreyso dhahay weelashiisu cadad nujuumi samaa'i waay samada xidigaheeda cadadkooda
addoon ayaa markaasaa laga cilaahu dha rasuulku markaasaa waxaa leeyahay rabbiyo ummadayda uu ka mid yahay markaasaa waxaa lay dhaha u dhahay ma ogsoonid maaragtay yaa ma axdasa bacdaka gadaashaada waxa uu soo dirisiiyey oo xumaanaha u keenay xawlkan sifaadkiisa axaadiis badanaa ku soo aroortay oo xadiis saxiixa iyo wax xasana iyo wax ogaa daciifa rasuulku wuxuu dhahay alayhi xawlkaygu masiiratu shahrin bil intii loo socdo waaye maa'uha abyadu min allabani biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha wariixu adyabu min almiski riixdiisuna waxay ka caraf doontaa miskiga wakiisaanuhu ka nujuumi samaa'i wiilashiisuna xidigaha maaragtay samada ku yaalo kala way man shariba minhu qofkii caba hal mar lam yadma abadan weligiis oomi maayo axaadiis markaa fara badanaa ku soo aroortay markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala fasalli lirabbika owdha ilaahay rabbigaaga u duko intaasoo nicmaa ilaahay rasuulkiisa uu siiyey hadda waxa ay sheegayaan waxaan waxba aan ahaynin ayay markaasay ka hadlaayeenoo darajada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaga uma muuqato rabbigaaga u dukow dhahay ilaahay salaadan waxa weeye salaadu ciidul adxaa weeye ama ciidu naxriga taasaa laga wadaa wanxar gowracow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala hadiyadaadana gowracow dhahay ilaahay hadaayaaka weye walaxaayaaka weye marka waxa weeye geeli waayo bimansilati dabxi fi lbaqari walghanami ayaa laga wadaa laakiin waxaa soo arooray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu maalkiisa midka ugu fiican oo gowracay xajatulwadaaci weeye subaxdii markaasi mina la joogay 100 halaad oo gowracay 70 gacantiisa uu ku gowraca kariimada 30 waxa weeye Sayyid Ali ayaa u gowracay salaada ayaa la khasisaa leeyahay iyo naxriga leeyahay dhikriga maxay la salaadu waa majmuuc cibaadadaari cibaadada dhan ayay kulminaysaa waa cibaadadiin diinta tiirkeedii weeye naxriga isagana xoolaha la gowracayo waxa ku sugan idcaamu dacaamka la quudiyo fuqarada masaakiinta marka kaas isagana waxa weeye xuquuqul cibaado loo quma waaye marka labadaas khasla markii la fiirsho waxa ku sugan xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda adoomanka oo loo qumo markaasuu la ilaahay inna shaani'aka kan ku caroodo dha ilaahay oo abtar waaya ku dhahay huwa isaga yaa al abtaru mid daba go'ana asaga mid khayr dar ay ku dhacdayo khayr oo dhan isaga ka go'ay weey maxayela waxay hadalkaas u dhaheen rasuulka kaleey saan soo marnay wiilkiisa qaasim ayaa dhintay markaasay waxay dhaheen batara muhammad waa raad ku ay dhaheen falaysa lahu man yaqumu bi amri min ba'di gadaashiisa qof arintiisa u qumaysa malaha maqaaladaas shaniicada markuu dhahay shaydaankaasu ayaa suuradan soo degtay iyadoo nabiga tasiyay looga dhigaayo loona bishaareeyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka qaasim waxa waay awlaadiisa midka ugu horeeyay ayuu ahay 2 sano ayuu noolayaa leeyri ama se 17 bilood amba waxa leeyri daabada heer oo kor ayuu gaaray qabla al-bixsa ayuuna ilaahay oofsaday ama waxa leeyri bacda al-bixsa heeday awlaadiisa midka dhinta kan ugu horeeyay ayuu ahay awlaad nabiguna waxa weeye 7 waayo qaasim iyo abdullaahi oo laqabkiisa oo tayyib iyo daahir weey iyo ibraahim oo markaa isaguna waxa weeye ay u dhashay maariyatul qabdiya iyo zaynaba iyo ruqayya iyo faadima iyo kulsum dhamaantood khadiija dhashay ilaa ibraahim kaas mooyaan maariyatul qabdiya dhashay dhamaantood waa ay dhinteen nabiga intuu noolay ay dhintay ilaa faadima mooyaan faadima nabiga kaleey salaam bacdigiisa iyaduna waqti yaray noolaatay waliba hadda duriyada nabiga kaleey salaam oo ilaa yawmil qiyaamati baaqi ahaanaya wixii faadima ay dhashay waay marka casharkeen intaas uu ka egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh